iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sool ay wali ka jirta abaar baahsan ayaa waxa la gaarsiiyay deeq isugu jirta raashin iyo biyo waxa deeqdan iska kaashaday hay'adaha SSF iyo SVO iyo sidoo kale dawladda Switzerland gaar ahaan magaalada Geneva oo ay ugu horeeyaan xildhibaan Axmed Jaamac Ali Axmed Sugulle iyo sidoo kale Farxiya deegaanada deeqdan la gaarsiiyay ayaa waxa kamid ah degmada Xudun Orbogays Lafweyne iyo sidoo kale Golbarwaaqo iyadoona ay deeqdan ka faa'iideysteen qoysas aad u tiro badani madaxda hay'adaha SSF iyo SVO ayaa ka hadlay deeqdan iyo meelaha ay ugu tala galeen gobolka Sool waxaan maanta halkan ka qaybinay saad aragtaan aan jeedaan raashin dhammaystiran oo 6 item isku jira raashinkan loogu tala galay dadkii abaartii waddanka ka dhacday guud ahaan Soomaaliya goboladan nacaad u saameysay ay dadka ay kaga faa'iideysanayeen raashinkan waxaa soo bixiyay oo ma garanaysaa fankeeda iyo dhaqaalaha lagu fulinayay lahaa Geneva consulka Geneva oo ay nagala joogaan maanta xildhibaan Axmed oo ka tirsan xildhibaanada Geneva iyo isla markaana ka tirsan ururka aan hawshan isla wadnaadana SVO hay'adda la yiraahdo SSF oo ka howlgasha waddanka Switzerland magaalada Geneva iyo gudoomiyaheedii Cali Axmed Sugulle iyo Farxiyo waxaan aad uga mahadnaqayaa saddexdan xubnood oo dadaal fara badan hawsha u galay taraaga inta leegna u soo galay si dadka wax u gaarsiin lahaayeen anagoo hay'adda SVO hay'ad local NGO oo waddanka ka howlgashana hawshan aan la fududeynay maanta waa aragtaa dadka inay soo gaareen insha Allah billahi kariim mashruucan waa mashruuc weyn oo guud ahaan gobolka Sool ka wadno isku jira raashin qaybin iyo insha Allah biyo dhaamin meelaha wali roobka iyo wax ka diin oo biyo aan dhaaminayno ee dadka barkacayaasha ay ku soo qaxeen marka waxaan aad mar labaad ugu mahadcelinayaa City Councilka Geneva iyo hay'adaha badan ee iska kaashaday adeegooyinkooda board ku aragtaan iyo hay'adii hawsha halka ka soo fureysay ay nagala joogaan maanta gudoomiyaha hay'adda Cali iyo xildhibaan Axmed Jaamac السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله سبحانه إن أبارة بدني أي كذا دولك أدوك قدام بانو مكارجني إلهي يجي هالكان كيني ومحدله حنا سوى عاوي على ذا شنيفة يعني سوى عاوي وحكلوا آذن عاوي كمونا ذا هالكان كبرا كم جيهين في شنيفة في الجلاس بلانوات كمونا بدن أو شنيفة آذن وقعد عن قبتي آذن وانو إلهي مهدي نويه وانو قارسين دونا دقموينك إنتي أنا كجارنا أردن أبارح بان دعي إنها يجعلنا كوارجني runtii farxad bay tahay inaan dadkayga la qaybsado dhibaatooyinkii ka soo gaaray abaarihii runtiina waxaan yar ee aan soo gaarsiinay waa wax yar oo aad u yar laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka inta badan aan soo gaarsiino waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa gobolka Geneva iyo dhowr degmo oo sida Geneva iyo Rio de Janeiro naga caawiyay mashruucan inaanu maalgelino waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa hay'adan SVO oo runtii si aad u qiimo badan soo maamushay qaybinta mucaawanadan qaar kamid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan ayaa u mahadnaqay hay'adaha SSF iyo SVO waxayna sidoo kale u mahadceliyeen dawladda waddanka Switzerland hay'adahan la soo gaarsiiyay SVO oo raashinka magaalada Geneva raashinka ka soo qaaday baan u mahadcelinaynaa oo soo gaarsiiyay degmada Xudun iyo xildhibaan Axmed iyo ururka SSF dhammaan waa u mahadcelinaynaa hay'adda SVO iyo SSF raashinka ay noo keeneen oo la soo gaaray raashin dhammaystiran buu ahaa kabuu fiicnaa si fiican baa loo qaatay alxamdulillah hay-adda ka socota Geneva gobolka Geneva oo u soo hurtay socdaal la soo gashay inay dadkooda caawiso waxna u tarto abaaroobay waa ku soo dhaweynaynaa raashinka iyo waxa noo keentay waxaana soo gaaray raashin 40 qoys ayaana soo gaaray nala siiyay waxaana soo gaarsiiyay hay'adaha
Jeneefa ay ka mid tahay ku mahadsan yihiin suucan bana noo soo gaarsiiyey Mukhtaar Cabdi Jaamac wararka warbaahinta SBC laascaanood